ibraahim cumar seefdheere oo ah abwaan dhallinyaro ah oo ka gabya xaaladaha uu la kulmo ayaa maanso ka sameeyey qiso ku dhacday nin saaxiibkiis ah kaas oo markii hore ee uu dhallinyarada ahaa lagu kari waayey in wakhtiga uu ka faa'iidaysto oo uu wax barto ama wax qabsado hase yeeshee talow ku ciirtay goor dambe oo ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen qisada maansadaas ayaan ka waraystay abwaanka oo muqdisho jooga mar aan kula xiriiray qadka online-ka nin ayaa iskuulka ayaan isla jirnay isku galaas ayaan ahayn marka wuxuu ahaa nin iska yara baashaalka jecelo subax mar uu soo daaha iyo mar uu gambiye iyo markii dambe hurdada subaxdii waa adagta mugti in laga kaco waa taqaan xilliyadii hore markii dambe iskuulkiiba waa u gooyaba chiefka ayuu u gooyay banoonigii wixii muddo markii aan joogay marka anigoo dugsiga sare ku jira ayaa waxaan arkay anigoo galab meel aan af ingiriiska iyo waxaas ka bari jiray u socda ninkiiyo meel ka shaqaynayo shaqo adag ku jiro dhismayaal iyo ka shaqaynaya dadkii warsada waxaan warnay ninkii hebel ahaa waa ninkii isaga u baashaali jiray oo saasna waa kii iskuulka uga tagay oo iska seexday war ninka asagoo maanta ka shaqaynaya meel ayaan arkay war ninka goormuu fiicnaa markaasaa leeyahay warnay wax kala maahane ninku dhawaan ayuu guursadayo biil baa laga sugayaa markaas ayaan waxaa halkaas iyaga soo baxday in si kastoo qofku uu mashaqaysto u yahay ama uu qofku yani jiifka isaga jecel yahay inay jiraan waxyaaba daari kara marka ninkan waxaan ogaaday waxa fadhiga ka kiciyey inay yihiin guurkii qisadaas ayuu gabay ku saabsan yahay laakiinse waxaan ka hormarinayaa tusaalooyin kale oo qof asagoo xaalad caadiya isaga jiray arrin dhacday ay ku sababtay inuu wixii wax ka bedelan sameeyo marka waxaan ku bilaabay geeraarka tirintiisa iyo maanse gebigeedba ninba guulla wuxuu siiyabuu godol ka maalaaye gedda faraha weeyo nafluhu uma gudboonaado geesigii xuseen cali ahaa geelle iyo faarax gabyaagii maxamed raage iyo galay xiijistay sidii goonixaad ruuxa iyo geelle iyo faarax sidii goonixaad ruuxa iyo gure iyo jaamac geeraarna tiriyo ma jira galabta maansoone inkastoonan meel sare ka gelin gola kabaankiisa xallad iyo quluud gabay labaan soo gudbinayaayo bal guddooma waa tanay badan gaabshay hadalkii dadku gabal magaalada degiya waa nin geel jirahe giirkii lo-aad oo dhaliya gara ninkii haysta oo goolan gollaya fadhiyaagaha gaaroole hadduu gabal ka dhaxo waa hubowgama addiidaahe muxuu goosan ruuxii lahaa geyi jibaxsi ninka baadiyiisa iska jooga habeenkii qorshihiisa wuxuu ahaa inuu iska seexdo laakiin markii xooluhu ka dhaxaan oo arigu goosmo ninkaas habeenkaas jiif uma yaallo xaaladaas ayaa kiciday ninkaas wuxuu yidhi gambooley dhammaan iyo rag waa godinya daabkeed lama kala maarmo qofna goonidiisii mar qula goolna dhali waaye maxay gabari kii caashaqaba goorxu socodsiitay ragga baadiyaha aad u yaqaani waxay dhaar moogtahay markii dhaanka la raray dhaansho allaa dhibay habeenkiina waa dhaan maalintiina waa dhaan habeenkiina waa dhedo marka ninku waxaa laga yaabaa gabar inuu hal saac la soo sheekaysto inuu u jiro masaafo laga yaabo inay tahay 20 kilomitir 30 kilomitir marka maxay gabari kii caashaqaba goorxu socodsiiday nabad baa cayaar gudud leh iyo gola ka haasaawe nabad baa garoor laga helaa ama sogoosaare nabad baa hurdiya gamal hoogoga la jiiftaaye hadduu guluf dagaal u dhacay galowgu dhiiloodo gurbood iyo haween iyo ninkii guudka ka ciroobay garmadoobayaal iyo markaan gaban la daynaynin muxuu guluf nin guri seexa jiray geed salkii biday markii dagaal dhaco adoo gurigeeda ul iska jiifi jiray oo markii baadiyaha la joogay waa la maataa hor raggu duurkay galeen habeenkii marka ninkaasna jiifkiisi waxaa u diiday dhibaatadaas iyo colaadaas jirta guyaal badan colaadaa ka jira giyiga Soomaali goobaha dagaalada kulkii fooda la isu geliyo mooryaantu way gani jireen gumac rasaaseeda gees buusa kaga leexi jira kii garaad lahi galabtaas abaanduuluhu gaban yar weeyaane colaadan ka gees giyiga saameysay maxay ruux garuun qaada jira gamasyada u dhiibtay oo guluf dagaal iyo waxleen goor kasta u taagay mararka qaar qofka bini'aadamka xaaladda bedeshay adoo iska fiicnaa hadad kuwa sharwadayaal iska dhex gasho sharwada kala noqonaysa adigu marka qodobka u dambeeyay oo aan u socday hadda soo gaaray nin 20 gaar oo fadhiyo hooyo gurigeeda dugsigii la geeyana niciyo goob waxbarasheedka iska cunagasiinkii haddana goosha soo seexday surwaal gegsan hadduu qaata iyo koba gafuur dheer gees iyo ilaa gees wuxuu beledka gaafmeero hadduu inan gashaantay arkay galablaha saaw waa dumar gadii lagu yaqiin gabi ahaantooday ayadoo ku goobaysa oo gacala ku haysa haya sheexashood uu galay yara gaboonaysa goorta la hadashay marqula gali difaac weyn gadaal gurashada isuu bisaa waadna garataay gabigay ka boodaba wuxuu gogol u sii geeyay godkay dalaq tiraahdaba wuxuu daba gucleeyaaba waxay tala gorfeeyaan kolkii geed la hariyo galbis iyo aroos iyo haddii gaaf la qaban qaabsho gurbaanada haddii loo timay gurina loo seeso nin xil guudka laga saarayo gacan bannaan weeye inuu beledka gaangaabiyana suurtageli mayso cisho nool gidaarada dhisiya gaaja waa cadowey ama saba intuu geerish taga bira garaaciyaaba
waagii guduuto kastuu shaqo wal goobaayey muxuu guurnin saxsaaxa jira gaba ka dheeray oo ninka iska jiifi jiray guurka ayaa fadhiga ka kiciyey gabaygaasuna intaas ayuu ahaa. waayahay marka ibraahimo waxa weeye halkaa tusaale ama dhacdo ayaad la kulantay marka intaasoo tusaale ayaana mataqaanaa ayaad isku soo dabaqday oo ay mataqaanaa inaad isku keento ay noqotay. waxaad iga sheekaysaa ibraahimow gabaygan oo kale markaad samaynaysid waqti intee leeg baa kaaga baxda oo kugu qaataa? nin horta gabayadu way kala duwan yihiin. had iyo jeer dareenka markaas kugu dhaliyo inta uu leeg yahay ay ku xiran tahay waqtiga gabaygu kugu qaadanayo. mararka waxaa laga yaabaa tix aad iska mala awaashay oo laga yaabo in inta maanta qayb kugu soo dhacdo marka 20 bit aad maskaxda ku hayso aad iska ilowdo ayaan kadib ay kugu soo dhacdo si dhamaystirto way dhici kartaa. mararka qaarna waxaa jira gabayo laga yaabo inaad 30 daqiiqo 40 daqiiqo aad ku samayso oo ay ku xiran tahay markaas waxa ku hor yaalla inta ay leeyihiin ay ku xiran tahay. had iyo jeer in maasa aad soo saarto gabay tiri aad iyo bahda suugaanleyda oo kaleeto tusaale oo kaleeto qof markuu careysan yahay oo kale ama marka uu gacan qaado kadib ama marka uu qayliyo nafis buu qofku dareemaa oo culayskii badnaaba ka degay bay yiraahdaan. tusaale markaad abwaan tahay oo wax intii kugu soo dhacaan aad foolato oo aad mataqaanaa ay soo maaxdaan dabadeed abwaanaduna maxay dareemaan? horta waa runoo qofku marka uu rabo inuu maasa soo saaro laabtiisa wax furayo laabtiisa ayuu rabaa inuu banaanka u soo saaro. xitaa keliya qofka kuma filla inuu gabayga keliya tiriye qofku waa inuu qof u sheegaa macna tixdii markaad tiriso haddaad kaligaa iska haysato waa cabursan tahay weli qof markii aad u sheegto uu qofku madaxa kuu ruxo adiga dhan nafisa dareemaysaa. marka inta badan gabayga ama maasada qofku marka uu tirinayo inta badan asaga ku nafis oo wax uurkiisa gubayay ayuu isaga saara caadi u noqonayaa marka qof markuu tixdii banaanka geeyo yani xilkeedii waa iska wareejiyay markaas bulshada ay gudub. ibraahimow maadaama aad ka mid tahay dhalinta hadda wax curisa ee suugaanleyda ah bal ka waran saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa qofka wax curinaya marka aanu afka hodanka ahayn? horta saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa oo qofku hadduusan mar afka hodanka ahayn wax qurux badan sooma saari karo. arrinta kaloo jirtase waxay tahay maasada Soomaalidu waxay ku dhisan tahay wax la yiraahdo qaafiyad sida maasooyin kale adduunka sida Carabigaba la mid. marka qaafiyadu waxay tahay markii aad maaso rabto inaad samayso ama aad gabay samayso gabay waa qayb kamid ah maasade waxaa laga rabaa erayo isku xaraf ka kaca waxaasna waxaa loo yaqaan qaafiyad ama xaraf raac. masalan gabayga oo kaleeto kan beedka dhaadheer leh waxaa laga rabaa beed kasta oo gabaygaas ka mid ah in laba eray oo isku xaraf ka kacda inay labada dhinac uga soo kala laabato. markaas waxaad dareemaysaa haddii aad tirinayso masalan gabaygu wuxuu noqdo ka soo qaad 100 beed markuu yahay gabaygaas waxaa laga rabaa inay ku jirto ugu yaraan 200 oo eray oo isku xaraf ka bilaabat ama ga ka wada bilaabat ama sa ka wada bilaabat. arrintaas marka waxay ku tusinaysaa marka qofku markuusan afka si fiican u aqoon xitaa iska daa inuu yani wax xigmad la soo saaray waxa ku adag Soomaaliya markii la joogo inuu batix sameeyo ayaaba aad ugu adkaanaysa. marka waxay ku xiran tahay qofku inuu maasa qurux badan soo saaro oo sidoo doona ugu xaragoodo qofku hadba intuu afka ka yaqaan ayay aad ugu xiran tahay.